بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ugu horreyn waxaan soo furan doonaa VMware-ki ayaan soo furan doonaa VMware-ki markaan soo furto biidnillaah waxaan isku dayi doonaa aynu sameyno qeybihii domain controller waayahay waxaynu rabnaa kombuyuutarada halkan inoogu install garaysan iyo seerfaradan inaynu ka maamulno ay wadaagaan hal magac halka magac oo inoo noqon doona domain controller waayahay si aynu taa u sameyno waxaanu soo kicsan doonaa marka qaybtan ayaan soo kicsan doonaa ama kombuyuutarkii ama serverkii ugu horreeyay aynu install garayno ayaynu soo kicsan doonaa serverka waxaan cayinaa inuu inoo noqdo serverkaasi domain controllerkaasina inay kuwa kale oo dhan ay ku join garaysmaan ay isaga ku xidhmaan isagana aynu ka maamuli karno qaybaha kale oo dhanba waayahay intaa markaan ka nimaadno waxaan leenahay kombuyuutarkii waynu soo kicsan doonaa markaan soo kiciyo waxaan xusi doonaa passwordkii aan hore ugu soo samaystay ayaan xusi doonaa waayo passwordkii markaan xuso waa soo yar weynaysiisanaya control plus alta plus inta baad siin doonta si aad u soo roonaysiisato una soo weynaysiisato shaashadda waayahay waxaan rabnaa inay dhammaantoodba ay joongareeyaan kaa ugu horreeyo domain controllerka si aynu taa u sameyno waa inaynu soo midaynaa IP addresska ay wadaagayaan waa inaynu hal IP address oo kaasoo moneyware ah inaynu u soo samaysano weeye si aynu taa u samaysano waxaan tegi doonaa local serverka ay ku qoran tahay local server marka aynu tagno waxay noo soo bixi doontaa qaybta internetka ugu hooseysa ayaad ku dhufan doontaa internetka hadda ama IP addresska waxaa siinaya DHCP-ga ama Dynamic Hosting Configuration Protocol-ka ayaa siin doona si aan soo bedelo taa waxaan ku dhufan doonaa internetka ayaad right click siin doontaa properties ayaad kasii dooran doontaa markaad property kasii dooratid waxaan dooran doonaa halka ay ku qoran tahay internet protocol version 4 TCP/IP ayaad highlight gareyn doontaa then waxaad ku dhufan doontaa property hore wuxuu inoo ahaa obtain buu inoo ahaa IP address automatically ayuu inoogu xidhnaa waxaan leenahay inagu use waxaan leenahay the following IP address inagaa gashan doona marka haddaba IP addresska waxaynu ka soo shidaal qaadan doonaa ka serverka la siiyey IP addresska halkaas CMD ayaan leenahay enter baan siin doonaa marka enter markaan siino halkaa waxaynu ka searchin gareyn doonaa waxaan leenahay IP address config markaan siino waxaan leenahay space baan leenahay /all ayaan siisan doonaa enter baan leeyahay halkaa wuxuu ii soo qaban doonaa oo ii soo bixi doonta qaybihii waxa weeyaan haddii aan qaybtan ugu horeysiino oo ah IP addresska uu yeelan doona marka IP addresskuna waa kan class C weeyaan waxaana ugu dambeysa waxa weeyaan 129 129 ayaa ugu dambeysa haddeen 129 ka eegno waxa siiyey serverka loo yaqaano DHCP ayaa siiyey oo serverkaasa ayaa siinay marka waxaan rabnaa inaynu aynu ku bedelano aan halka ku qoran waayahay marka halkan waxaan xusi doonaa aynu qoran doonaa 192.168 intaasaan gashan doona waxaan leenahay 192.168 waayahay 154 sidoo kale waxaan gashan doonaa oo ugu dambeysa 192 way qaybta ugu dambeysana waxaan dhigi doonaa 192 ayaan leenahay 29 intaa markaan samaysano waxaan leenahay subnet maskigu wuxuu ogaan doonaa inuu class yahay classina waxaa lagu aqoonsanayaa xarafka ama sirsimada ugu horeysa ama waxa weeyaan octetka ugu horeeya default gateway-gana xaggan ka soo search garaysan doonaa waxaynu arki doonaa default gateway-guna inay ku kala duwan yihiin godka ugu dambeeya oo godka ugu dambeeya uu true yahay sidaa awgeed halkaa waxaan gashan doonaa 192 waxaan leenahay 168.154.2 ayaan siin doonaa qaybtan waxaan leenahay qaybtan waxaan dooran doonaa verified DNS-ka verified DNS-kana waxaan la mid dhigi doonaa ka loo yaqaan default gateway-ga ayay isku mid yihiin isagana waxaan siin doonaa 192.168.145.2 ayaan leeyahay waayahay qaybta loo yaqaano alternate DNS-ku ama waxa weeyaan qaybtan DNS-ku waa DNS free ah waa Google DNS weeyaan isaguna waa mid guri ah marka waxaan xusi doonaa afar ayaan xusi doonaa waxaan leeyahay 8ka markaan qorto space baan leeyahay 8ka labaad baan qori doonaa 8ka saddexaad ilaa 8ka afraad sidaa awgeed okay baan siin doonaa okay markaan siiyo qaybtana close baan leeyahay qaybtana way iska soo xidhi doonaa
haddii aan hadda qaybtan iska soo xidho aan qaybtan refresh gareeyo waxaan arki doonaa in uu toos inoogu assign gareyn doono uu inoo soo saari doono kii aynu manual ahaan aynu usoo cuganay ama usoo dooranay waayo intaa markaan ka nimaadno waxaan leenahay waxaynu iman doonaa qaybihii inaynu kusoo darsano serverkeena qaybihii loo yaqaanay active directory-ga iyo domain controllerkii ama DNS-kii inaynu kusoo darsano si intaa ugu soo darsano waxaan dib ugu noqon doonaa dashboardkii waxaan dooran doonaa halka ay ku qoran tahay add roles and features waad ku dhufan doontaa then next ayaad siin doontaa sidoo kale next ayaad leedahay halkaa ayaan waxaan ka soo darsan doonaa qaybta ugu horeysa ay ku qoran tahay active directory and domain service ayaad tigta saari doonta wuxuu leeyahay marka roleskan inaad ku soo darsato add featureska cusub diyaar ma u tahay haa baan leeyahay sidoo kale DNS-kii isagana tigtaad saari doonta labadani waxay naga caawin doonaa active directory waa direct service weeyaan waxa weeye waa provides central domain management waa kayna siinaya waxa weeye ubadhaxaadka aynu ka maamuli doono kana waa kayna siinaya magaca aynu dhammaantood wadaajin doono ay wadaagi doonaan dan waxaan leeyahay labadaa markaan soo tigta soo saarto next ayaad siin doonta next ayaad leedahay sidoo kale qaybta markayn marayno waxaan leenahay install bayn markaas siin doonaa step yar buu qaadan doonaa wuu install gareyn doonaa markuu install gareeyo ayaynu promote ku samayn doonaa promote-kana waxaan ku samayn doonaa waxa weeye qaybta active directory iyo domain waxa weeye controllerkii waayay qaybtan saasuu inoogu dhameeyey markuu inoo dhameeyey wuxuu inoo soo saari doonaa promote this server to a domain controller isagan ku dhufan doonaa waynu promote gareyn doonaa markaynu promote gareyno qaybtan inoo soo saari doonaa wuxuu leeyahay domain name-ka ma domain name hore u jira ayaan ku sameeya ood isticmaali doontaa mise waxa weeye mid forest existing oo forestigan hore ugu jiray waxaan leeyahay intaba ma doonayay mid cusub iyo sameeyo new forest ah waxaan leeyahay ATU ayaan ula bixi doonaa marka ATU baan siin doonaa local ayaan leeyahay dot local ayaad siin doonta intaa markaan siiyo ATU dot local ayaan leeyahay oo xarafka weynu ugu weyn yahay oo capital xarafka ugu horeeya uu capital yahay inta kalena ay small yihiin ayaan next baan leeyahay next markaan siiyo waxaan dooran doonaa qaybtan wuxuu ku soo saari doonaa forestiga functional levelka iyo domain functional levelkaba 2016 oo server ah ayuu ku soo saari doonaa labadaba intaas ay u deysan doontaa maadaama uu qayb ka yahay kuwan install gareynay uu 16 uu qayb ka yahay intaas ay u deyn doontaa qaybahan oo dhiman doontaa waxaad ogan doontaa oo dooran doontaa passwordka hadhow domain controllerka marka aad siinaysid oo wadaajinaysid domainka passwordka aad gashan doontaa ama lagu weydiin doono marka halkaa password aad xasuusan kartaa ku qorta ATU waan leeyahay 1 2 3 labaad ayaan anigu siin doonaa kana sidoo kale ATU 1 2 3 labaad ayaa siiyey then next baad leedahay marka hadda halkaa be attention waxaan soo siinay local name-ka ayaanu soo qoranay waxaynu domain name-ka ayaanu soo samaysanay oo waxaan ku soo qoranay ATU.local sidoo kale waxaan soo samaynay password inta markaan soo samaysay labadaas waxay naga caawin doonaa mar walba aynu isku dayno inaynu isticmaalo domain name-kan aynu soo qoranay in layna weydiinayo password marka kuwan oo dhan waxaan gashan doonaa qaybaha marka waxaan leeyahay next ayaad sii siin doontaa qaybtana next baad leedahay next baad siina wayahay xoogaa biri request ayuu check gareyn doonaa biri requestiga markuu check gareeyo ayuu noo soo saari doonaa waxa weeye installationkii inaan ku install gareyno haddeen eegno waa kuwa halkan inoogu jira aan leeyahay install warningkaasuu noo soo saaraya wayahay waxa weeye caqabada inaguma aha install baad siinaysaa marka isaga toos kugu install gareynaya haddeen eegno qaybahana waa ka DNS-ka halka inoo soo fuulay waa ka qaybta inoo soo galay active directory-gi iyo waxa weeye DNS-kiiba marka intaas u dhammaystiri doonaa intaa markuu dhammaystiro ayuu waxa weeye si toosa ay qaybtan inoogu shaqaynaysa waaya qaybtan ku soo saari doonaa marka computerka restart u diri doonaa soo magacii ugu profile gareeyo restart oo markaa u diri doonaa dan waxa weeyaan isagaa si soo shidi doona
waayahay bismillahi raxmaani raxiim waxaan ku soo shubanay casharkeennii hore waxaanu soo aragnay qaabka loogu install gareeyo laguna soo shubto active directory-ga iyo sidoo kale domain system-ka ama domain name-ka waxaan rabnaa haddaba inaynu maadaama aynu labadaa haysano waxaan rabnaa inaynu ku xidhanno aynu kombiyuutaradii ama serveradii kale inaynu ku soo xidhno DC-ga si ay DC-ga ugu soo xidhna waxaan u baahannahay marka hore inaynu dhammaantoodba soo midayno DNS-ka isticmaalaya ama IP address-ka ay dhammaantoodba isticmaalayaan inay noqdaan hal IP address inay ka sinaadaan IP address-ka ay wada isticmaalayaan waxaan leenahay waa kan serverka ayna siinayo DC-gu ayna horena u soo cayimanan waxaan leenahay si aan u soo midayno una ogaano IP address-kiisa waxaan ku qori doonaa CMD-da ayaan soo furan doonaa CMD-dii markaan soo furto CMD-dii waxaan ku searchin garayn doonaa aan leeyahay IP config inta baan siin doonaa marka halkaas waxaan ku qoran doonaa halkaas waxaad ku qoran doontaa IP config inta baad leedahay marka IP config ama IP address-ku isticmaali doonaa waxa weeye waa 192.168.154.129 ayuu isticmaali doonaa kaas halkaa inoogu qoran ayaa waxaynu soo siin doonaa computerkan 01ka ama serverkan 01ka loo yaqaano serverka 01ka waxaan tegi doonaa qaybta internetka ayaad ka tegi doontaa waxaad soo furan doontaa open network and internet setting ayaad tegi doontaa waxaad ka sii dooran doontaa qaybta ay ku qoran tahay internet then waxaad ka dooran doontaa change adapter option ayaad ku dhufan doontaa inta markaad ku dhufatay internetka ayaad dooran doontaa right click baad leedahay properties-ka ayaad dooranaysaa marka properties-ka markaad dooratid waxaad ka sii dooran doontaa qaybta ay ku qoran tahay internet protocol version 4 TCP/IP ee properties-ka ku dhufan doontaa marka qaybtan hoose ayaa waxaynu soo gashan doonaa qaybtii aan hadda soo arkaynay ama IP address-ka soo arkaynay IP address-ka wuxuu ahaa 192 ayuu ahaa .168.45 and .145 and 54.29 ayuu ahaa .129 halkan kalena waxaan gashan doonaa DNS-ki free-ga ahaa oo Google DNS-ki 3-4 yar ayaad gashan doontaa adigoo space siinaya mid kasta u dhaxaysiinaya dan waxaan leeyahay okay baad siin doontaa sidaa awgeed waxay ka dhigan tahay hadda inay sidaa ay ku midaysan yihiin qaybtana waa iska soo xidhi doonaa waxaan tegi doonaa markaa computerka client-ga markaan tago okay isagii waan client-ga baan tegi doonaa isagana si lamida waxaan ku dhufan doonaa qaybta internetka ayaad soo furi doontaa open network ayaad ku dhufan doontaa open network markaad ku dhufatid waxaad kasii dooran doontaa halka ay ku qoran tahay internet isagana si lamida waxaan dooran doonaa waxaan dooran doonaa qaybtan change adapter option ayaynu dooran doonaa waa intaa markaan dooranno internetka ayaad ku dhufanaysaa right click ayaad leedahay properties ayaad ku dhufan doontaa isagana qaybtii hoose DNS-ka ayaad soo dooran doontaa qaybtan ay ku dhufan doonaa properties ayaan leenahay qaybtii kale DNS-ka ayaan dooran doonaa waayahay qaybtanaad markaa xogtii aad soo gashan doontaa waxaan leenahay 192.168.154.129 aniga hor igu jiray laakiin ninkuna qaybtaas saas oo dooran doonta kana kalena waxay isticmaali doontaan afarta aid oo DNS-ka free-ga ah oo Google-ka ayaa isticmaali doontaan okay baa siin doontaan qaybtaana waa iska soo xidhi doontaan oo reedisaasay qaybtaasina ay ugu joon garaysan tahay keliya waxaan soo kaxsan doonaa serverka core serverka si gaar baynu muuqaal gaareen ka samayn doonaa waxaan soo furan doonaa serverka 2016 ayaad markaa soo kicin doontaa oo soo shidi doontaa waaye kan client-gan ayaan iska xidhi doonaa ka client-ga ayaan iska soo xidhi doonaa oo isagan soo furan doonaa 01kaas 16kan ayaad soo furan doontaa kana waan iska xidhay marka xoogaa waxaan diidayaa culeyskaas afartaasiba waxay sababayaan culeys marka kanu baad iska soo xidhaysaa kana waad soo shidan doontaa marka waxaan sugi doonaa intuu inoo soo kici doono isagana si lamida IP address-kii weliba qaybtii DNS-ka ayaynu kasoo bedeli doonaa waayo markuu saa igu soo kacay waxaan tegi doonaa isagana internetka ayaad tegi doontaa
isagana right click baad leedahay internetka intaad tagtid open a network baad leedahay network setting waya intaa markaynu ka doorano waxaan kasii dooran doonaa internet halka ay ku qoran tahay internet ama waxa weeyaan qaybtan ayaad ku dhufan doontaa change adapter setting deetana right click ayaan leenahay properties ayaan ka dooran doonaa xogaa muuqaal ahaan wuu ka yar duwan yahay properties ayaan ku dooran doonaa qaybtan hoose tagi doonaa isagana 192 ayaan leenahay 168 145 129 ayaan siin doonaa kan kalena waxa weyn siinsan doonaa isagana waayahay oo isagana intaas DNS-ka free ayaan ku dooran doonaa okay ayaan siin doonaa qaybtan way iska soo xiri doonaa kaasi marka saas isaguna uu noogu qaatay waayahay kaasi marka saas noogu qaatay waxaan tagi doonaa marka waxaan rabnaa inaynu ku midayno inaynu samayno marka magacii inaynu kusoo bedelo domain name-ki oo password-kii aynu soo samaysanay iyo username-kii aynu soo samaysanay markii aynu DNS-ka install gareynaynay baan rabnaa inaan hadda gashano labadan ka doontid baad ku dhufan kartaa tusaale waxaan ku dhufanaynaa okay waxaan tagi doonaa serverka 01ka serverka markaad tagtid waxaad ka sii dooran doontaa qaybta ay ku qoran tahay local server ayaad ku dhufan doontaa qaybta localka ayaad ka sii dooran doontaa labada ka doontid ayaad ku dhufanaysaa kaaba saraba waan ku dhufanaynaa oo computer name-ka ayaad ku dhufan kartaaba change baan leenahay change markaan doorano halkan waa halkan magaca ka soo bedeli jirnay computerka laakiin domain name-ka halkan ka soo bedeli doonaa waa qaybta halka waxaan gashan doonaa magacii adforest ugu horeeyaan soo siisanay waxaan anigu la soo baxay atu.local inta ayaad gashan doontaa okay baad siin doontaa okay markaad siisid shudhiba wuxuu ku soo saari doonaa password-ki username-ki iyo password-ki aynu soo siisanay waaye username-ka waxaan ka soo dhignay atu.local itana waxa weeye backslash ayaad isticmaali doontaa maaha forward slash backslash ayaad dooran doontaa administrator-ki ayaad ogan doontaa oo gashan doontaa halkaana password-ki ayaad gelin doontaa password-ka markaa password-ki aan soo doortay ayaan gashanayaa password-ki markaad gashatid waayahay password-kana intaasaan la soo baxay waxaan ku dhufanayaa markaa okay ayaan ku dhufanayaa marka piece saariga hadduu saxan yahayna saxdi buu soo saari doonaa haddii uu khaldan yahayna khalad buu soo saari doonaa waayo markaan saa u gelino wuxuu noo soo saarayaa okay buu noo soo saarayaa okay-daasaan ku dhufanaynaa gabadhii computer-kii restart baan u dirayaa kao computer-ka okay baan leenahay restart ha u diro computer-ka markaan ka nimaadno waxaan u iman doonaa computer-ka labaad baan u iman doonaa computer-kana waa gashanay isagana wuxuu noogu diri doonaa restart buu isagana noogu diri doonaa isagana okay baan siin doonaa waayahay okay baan siin isagana restart-gaas noogu diri doonaa isagana restart-gaas deyn doonaa waxaan u iman doonaa marka computer-kan ugu dambeeya computer-kan ugu dambeeya isagana soo keen doonaa marka intaa mid ka mid ah ayaan soo dansan doonaa kana wuu soo kacayaa kana sidoo kale wuu soo kacayaa marka computer-kan 16ka ayaa rabaa inaan markaan soo kaco inaan soo dansado si aan kana shido haddii kale culays fara badan ayuu sameynayaa computer-ka waniga soo damiyey kan client-iga ah ayaan shidayaa marka waayahay hadda tusaale kii buu ii sameeyey adreskaasi igu soo daray adreskaasi waa domain name-kii domain name-ki markii aynu gashano halkan waxaan gashan doonaa domain name-ki magaciisa ayaan gashan doonaa oo noqon doona waxa weeye username-ka markaan gashto oo intaa qoro waxaan leeyahay backslash waan leeyahay sidaa awgeed waxaan gashan doonaa administrator administrator markaad gelisid waxaan leenahay aynu gashan doonaa allaha musta'aanu kariim password-ki baan gashan doonaa password-kana atu123 ayaan gashan doonaa enter baan siin doonaa marka saasuu kuugu soo baxayaa kaa koobaad saasuuna ugu xidhmay haddii aynu qaybta kala tagnona
kuna saas inuu soo saaray marka kana inoo hagsiisnaa waxay tagi doonaa qaybta setting-ka ayaad ku dhufanaysaa qaybtan oo waxaan rabnaa computer name-ka inuu soo bedelo marka Windows waa ka duwan yahay isagu system-kiin tegaynaa setting-kiin tegaynaa setting-ka markaan tago waxaan search garan doonaa halkaan ku qori doonaa PC9 okan view your PC9 qaybtaas ku dhufanaysaa qaybta markaad ku dhufatid qaybtan ku soo saari doonaa hoos baad u soconaysaa waxaad ka sii dooran doontaa advanced system setting-kaasaad ku dhufan doontaa qaybta markaad ku dhufatid waxaanu ka sii dooran doonaa computer name dan waxaan leenahay change baan ku dhufan doonaa change markaan idhaahno qaybta domain name-ka inuu iman doonaa domain name-ka qaybtaas waxaan kasan doonaa domain name-ka atu baan leeyahay tana okay ayaan siin doonaa okay markaas wuxuu ii soo saari doonaa username-kii password-kii inaan gashto halkan waxaan leenahay username-ka ayaan gelin doonaa dot baan leeyahay local ayaan siin doonaa waayahay backslash ayaad leedahay tana waxaad siin doontaa administrator ayaad leedahay administrator markaan idhaahno qaybtana waxaan gelin doonaa password-kii tana okay baan siin doonaa marka isaga inoo soo saaraya haddii sax yahayna saxdii buu inoo soo saaraya haddii kalena khalad buu inoo soo saaraya waayahay khalad ayuu inoo soo saaray dib baan ugu celin doonaa dib markaan ugu celiyo atu.local markaan siino waxaan leenahay backslash tana administrator baan leenahay waxaan leenahay atu123 way inta sanction doonaa wayay waka saxda inoo soo saaray okay baan ku dhufaynaa marka okay baad ka sii tooran doontaa waxaan leenahay restart inoo sii marka qaybkaasuna sidaasuu inoogu xiran yahay oo saasuu inooga mid noqday haddii aynu eegno DC-gii haddaynu tagno ama domain controller-kii haddaynu tagno isagana waxaan ku geli doonaa password-kii wayay isagana waxaan ku geli doonaa isla password-ka ayaan soo gashan doonaa atu123 inta baan siin doonaa marka qaybtii balka inooga soo qaadi doonaa kuwa halka inagu install garaysan wayay waxaan tegi doonaa halkaas si aynu ogaano inay ku soo xidhmeen waxaan tegi doonaa toolska deetana waxaan kasii dooran doonaa halka ay ku qoran tahay active directory and users and computers baan ku dhufan doonaa halkaan markaan ku dhufano wayay qaybtaan markaan ku dhufano waxay noo soo baxaysaa qaybtan ay noo soo baxaysaa qaybtaana waxaan kasii dooran doonaa waxaa kasii dooranaysaan computers ayaad kasii dooran doontaa si aynu ogaano kombiyuutarada ku xidhan wayay computers ayaad ku dhufan doontaan hadda jaale qaybta haddaan ku dhufano computerska waxaa ku xidhan intaa computer ba markaa inugu xidhan halkaa inugu qoran wayay waa computerka koobaad ka labaad iyo ka saddexaad marka hal computer baa inaga dhiman kaasi inaga dhimanina waxa weeye waa computerkii loo yaqaanay core serverka ama serverkii loo yaqaanay core serverka ayaa inaga maqan intii kale halkaasay inugu xiran yihiin kaasna waxaynu ka dhigi doonaa muuqaalka dambe marka idinkuna intaas sameeye. Assalaamu calaykum.